Guddida joogtada ee Golaha Wakiilada Somalilan ayaa maanta kulan ay albaabada u xidhan yihiin waxay la qaateen Guddida Tacliinta Sare ee Somalilan uu hogaaminayo gudoomiyaha guddidaasi Professor Saleebaan Dirir Cabdi. Markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta faahfaahin dheeriye ka siiyay kulankaasi waxuu daarnaa gudoomiyaha guddida joogtada ee Golaha Wakiilada Somalilan iyo gudoomiyaha Guddida Tacliinta Sare ee Somalilan Professor Saleebaan Dirir Cabdi. bishii 13 bishii 11 waxaan la kulannay amba hawl aan wadaagnay shaqadii qaranka aan u haynay annaga iyo Guddida Tacliinta Sare yaan kulannay waan iswaraysanay wixii tacliinta sare ku saabsan iyo waxbarashada sideeda guud ahaanba intaba waan iska waraysanay waan waqti xogaaya yaan ku qaadanay waanan wax badanna waan isla fahanay oo sidii kor dalka waxbarashadeeda loogu soo qaadi lahaa ay kamid tahay oo muhiimaduna inta ay tahay runtii si aad u wanaagsan oo heer sare ah ayay noo wareysteen aanuna isu weydaaranay oo xog waraysi ah waxay naga wareysteen oo aanu uga warnay maraaxilkii tacliinta sare soo martay wixii la soo qabtay ilaa iyo hadda waxa aanu gacanta ku hayno ee aanu doonayno iyo waxa noo qorshaysan waxa xoog la saaray tiro iyo tayaba horumarka jaamacadaha horumarka macallimiinta wax ka dhiga horumarka iyo tayada ardayda la qaadanayo marka guud ahaan arrinkaas aanu meel wanaagsan waan isla dhignay hadday baahi tahay hadday tayantii waxbarashada tahay haddii ay tahay sidii aanu u wada shaqayn lahayn dhinac walba waanu taaban marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa runtii waanuna la kaftano waxaanu nidhi shalay waxaad noo ahaydeen qoladii aanu imtixaamaynay markii la kala saarayey xildhibaanada maantana waa idinkaasoo idinkii baana imtixaamaye aad iyo aad baad yani maaragtay aanu isu wadeersanin intaasaanu maaragtay aan ka odhanayaa laakiin wuxuu ahaa kulan runtii waxtar ah ayuu ahaa aanu aad u kala faa'iidaysanay arrimaha baahiyaha tacliintana waa la yara taabtay iyo si dalku horumar degdega u gaadho inaanay jaamacaduhu noqon uun waddadii la raacay berigii la asaasay dalka baahidiisa in laga jawaabo khaasatan xagga injineerinka xagga caafimaadka xagga yani badaha xagga degaamada yani waxaasoo dhan si qoto dheer baa loo taabtay oo subjectskii iska rootiinka ahaa ee jaamacadu dhigi jireen na in aad looga guuro waxa dalka horumarinayana aad loogu dhiirado marka aad bay u mahadsan yihiin gudoomiye nuur iyo colkiisu Liibaan Usman Ali telefishinka Ariel Hargeysa.